الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد عليه أفضل الصلوات والتسليم أما بعد walaalayaal maanta waxaan doonayaa in aan idin soo bandhigo ama idin soo gudbiyo mowduuc aad runtii u wanaagsan oo ku saabsan baryada allah subxaanahu wa tacaala xilliga ugu wanaagsan ee allah subxaanahu wa tacaala uu naga aqbalayo nagana ajiibayo baryadeenna marka maalmahan markii aan arkay dad badan oo ka hadlaya oo kugu leh muddo dheer ayaan alla baryayey jalla sha'nuhu wacalaa laakiinse baryadayda in muddo ahiba wax natiijo ah kama aanan gaarin oo wax raad ah igama soo bixin sidaas ay ku qowlayaan marka waxaan rajaynayaa haddii si wacan ay u dhuuxaan mawduuca maanta aan ka sheekaynayo oo ay u daawadaan kilibkan in allah subxaanahu wa tacaala uu u saqirayo urahooda waa marka ay raacaan shuruudaha aan soo sheegi doono hadduu alla idmo haddaba arrimahaasi ama shuruudahaasi maxay yihiin hase yeeshee waxaan jeclahay inta aanan arrimahaas iyagu aanan ka hadlin in aan idinka qiseeyo qiso yaroo kooban oo ku saabsan arrintan iyada ah salafkii hore ayaa waxaa la sheegay nin oday ah iyo afadiis in ay u dhalatay gabar yar gabadhaasina waxay ahayd mid araggala oo aan waxba arkayn ayay ahayd gabadhi marka odayga iyo xaaskiisaba waxa ay la tacaali jireen gabadhooda korriimadeeda iyo kobcinteeda ayay la tacaali jireen laakiinse xilliga ay gaadhay gabadhaasi ay gaadhay muxuu ahaa wakhtiga socod baradka ayaa aabbihii iyo hooyadii gaar ahaan aabbaha waxaa ku soo korodhay murugadii oo ku sii siyaaday sababtaa xilligaas wuxuu arkayey hooyada oo ku naban gabadheeda oo dhinac kasta u raacaysa gabadhina ay doonayso in ay la ciyaarto carruur kale hase yeeshee gabadhu wax ma aragto indho ma laha oo waa indhool markaasaa odaygu wuxuu arkayaa gabadhi oo meel ku kufaysa iyagoo gidaarka madaxa la dhacaysa iyadoo waxa ay muxuu ahaa ka hor imaanayaan oo isla markii ay doonayso inay cararto hooyadina ay daba taagan tahay hooyadina ay la kufayso odayga marka waxyaabahaasuu arkay oo aad ula murugoonayay xaalku markuu intaasi marayo ayaa odaygu waxa uu go'aan ku gaaray in gabadha uu u dhigo xagga cisbitaallada uu u bandhigo dhaqaatiirta indhaha markaasaa odayga wuxuu bilaabay in uu u geeyo dhaqaatiirta indhaha gabadhiisa hadba midka loo tilmaamo oo la yidhahdo ninkaas ayaa ugu wacan oo ugu fiican xagga daweynta indhaha markaasuu mid u tagaa uu ka gudbaa mid kaluu u tagaa si muddo loo hayo kadib uu ka gudbaa mid kaluu u tagaa wax natiijo ah ma lah mid kaluu u tagaa wax natiijo ah ma leh akhiiran dhaqaatiirtii indhaha ay kula taliyeen odaygii in gabadhiisa aanay wax dawo ah aanay u haynin oo ay la tacaaleen laakiinse bal in uu ula tago dhaqaatiirta dhimirka ama maskaxda iyo kuwa dareemayaasha in uu u geeyo si markaasi wax natiijo ah haddii ay uga soo baxaan xagga marka iyaguna uu dib ugu soo celiyo markaasi muxuu ahaa ee gabadhu arrinteeda ay wax ka qabtaan odaygii ma fadhiisana orod ayuu muxuu ahaa orodkiisii ayuu halkiisii ka bilaabay markaasuu wuxuu tagaa uu u geeyaa gabadhiisa dhaqaatiirta dhimirka iyo kuwa muxuu ahaa dareemayaasha midba midka lasii tilmaamo ee ugu magac dheer hase yeeshee muddo toddobaadyo ah markuu ku dhex jira arrintaas ayaa iyana wax natiijo ah way uga soo bixi weyda iyadana maalintii dambe isagoo aad u murugaysan oo wax weliba sameeyey gabadhin ay xaaladdeedu sidaas ay iska tahay ayaa subax subxaha ka mida wuxuu aaday masaajidka u dhowaa si uu salaadda fajarka u soo tukado fajarkii korkii la tukaday kadib oo ay dadkii muslimiinta ahaa ee tukaday ay ka yaaceen masaajidka ayaa wuxuu iska fadhiistay xagga dambe masaajidku iska fadhiistay wuxuu bilaabay in uu wardiyo uu alla uu baryo inuu iska wardiyo
isagoo sidaa u wardanaya oo markaasi ilmaduna ay ka qubanayaan ayaa waxaa u yimid markaa imaamkii masaajidka oo isna doonayay markaa inuu ka baxo masjidka oo gurigiisa uu ku laabto. imaamka ayaa odayga waraystay, marka wuxuu ku yidhi, warniyaho maxaa ku helay oo see wax u jiraan? markaasuu wuxuu ku yidhi, qisadaas ayaa i haysata. marka gabadhii dhaqaatiirta indhahana waan ula tegay, mid kasta midka uu ka wanaagsan yahay ayaan u tegay oo aan gabadhi soo tusiyey oo dawo iyo daweynba iyo wax waliba lagu dayay. se yeeshe waa loo caal waaye xanuunkeeda oo araggii mid u soo celiyay xitaa xoogaha yar xitaa waa aan ku guulaysan weyn uu yidhi. marka illin kasta sidaan u garaacayay hadda maanta wuxuu yidhi waa aniga iska soo fadhiistay oo marka aan soo xusuusta arrinta gabadhaydaba aan murugoonayo, oo waa sida hadda ad arkayso illintan iga socota waa murugada aan la murugsanahay arrinta gabadhayda iyo xanuunka haya gabadhayda dartiisa ayaan la ooyayaa ayuu yidhi. marka wuxuu yidhi imaamkaa wuxuu ku yidhi balli dhegayso, illimada aad garaacday oo dhan way wanaagsan yihiin oo waa dadaasha, laakiinse waxaa kuu dhinnaa oo kuu harsanaa illinka allah subxaanahu wa tacaala oo musabbibul asbaab ah, asbaabta isagu khalqa, in aad garaacdid oo weliba si wacan aad u garaacdid ayaa ku harsanayd. marka wuxuu yidhi gabadhaada xanuunsan, adiga aniga iyo dhaqaatiirta aad u tagtay giddigooda allihii milkiyaddooda lahaa ayaa ku harsanayd in aad si wacan aad u garaacda albaabkiisa. markaa tag oo alla bari oo si wacan u bari, laakiinse baryadaada waa inay ku dhehnaadaan 4 shuruudood oo aad mar weliba markaad allah subxaana wa tacaala aad barinaydo aad 4 shuruud aad maskaxdaada gelisa. midda koowaad waxa uu yidhi marka aad allah subxaana wa tacala aad baryayso qalbigaaga waa inuu xaadir yahay oo aadna ku kalsoonaataa allah subxaanahu wa tacaala oo aanaad odhan ilaah waa baryay laakiin wax natiijo amaanan helin. waa inaad ku kalsoonaataa qalbigaagana uu qiraa in allah subxaanahu wa tacaala isaga mooyaane cid kale aanay xanuunka ka qaadi karayn gabadhaada. waa qodobka kuwaad uu ku yidhi. qodobka labaadna wuxuu uu ku yidhi waa inaad tala saarataa allah subxaanahu wa tacaala oo aad u wakiilataa arrintaada iyada ah, alla u wakiilo arrintaada iyada ah. midda saddexaad waxa uu ku yidhi waa inaadan ka quusan naxariista allah subxaanahu wa tacaala, oo haddii jawaabta xagga alla ay kaa raagto waa inaadan quusan oo allah subxaanahu wa tacaala aad ku celcelidaa. allah subxaanahu wa tacaala waxa uu jeclaya addoommadiisa kuwa mar kasta yidhaahda yaa allah yaa rabbi ku haya ayuu aad u jecelyahay allah subxaanahu wa tacaala. marka waa inaadan ka quusan allah subxaanahu wa tacaala naxariistiisa, oo walaa tayasu min rawx illah allah subxaanahu wa tacala waatuu kitaabkiisa uu ku yidhi. marka afraadna wuxuu yidhi waa inaad dhowrtaa saacadaha allah subxaanahu wa tacaala uu baryadeenna naga ajiibayo, iyadoo mar kasta allah subxaanahu wa tacaala uu baryada naga ajiibayo uu yidhi waidaa sa'alaka cibaadii cannii fa innii qariibun ujiibu dacwata daaci idaa dacaan uu yidhi, haddana waxaa jira saacado iyo maalmo oo ducada allah subxaanahu wa tacaala uu aad u aqbalayo. marka hadda laga bilaabo markaad masaajid saa uga baxdo bilow in aad u barido allah subxaanahu wa tacaala gabadhaada sida xanuunka uga qaado, laakiinse si gaar ah waxaad allah subxaanahu wa tacaala aad u baridaa maalinta jimcaha ah, weliba salaada casarka iyo maqribka inta u dhaxaysa, waayo waxaa ku jirta ayuu yidhi saacatul ijaaba ayaa ku dhex jirta. odaygii siduu u waday baryadii allah subxaanahu wa tacaala u waday ayaa waxa la gaaray maalinta jimcihii marka la gaaray xilliga salaada casar ayuu ku cararay masaajidkii. salaada casar markii la tukaday ayuu bilaabay isagoo aad u qushuucsan in allah subxaanahu wa tacaala uu baryo si xanuunka uga qaado gabadhiisa. cabbaar markuu waday baryadii uu waday ayuu ka soo baxay masaajidka, wuxuu soo aaday uu ku soo laabtay gurigiisa. hase yeeshee guriga marka uu soo galay ayaa waxaa dhacday marka mucjisadii aanu marna malaysanayn odaygii isaga ahaa.
waxa uu la kulmay xaaskiisa oo gabadhi yareeda uu dhalay oo markaas 3 jirka ku beegneed oo musqusha laga soo saaray suuliga laga soo saaray oo hooyadeed ay u soo qubaysay ayuu la kulmay sidaa gabadhii odayga markay saa ay isha u saartay gabadhi way soo carartay aabe xagee ku maqnayd waa malaysan kari waaya markaas odaygii farxad darteeda gabadhi ayuu la booday isagoo ku haya alxamdulilaah alla u mahadnaqaya oo ku celcelinaya oo ishayn waaye marka haddii aad allah subxaana wa tacaala aad barido adigoo oofinaya shuruudaha aan soo sheegay adoo oofinaya allah subxaana wa tacaala waa uu kaa ajiibayaa baryadaada marka ha lagu dadaalo allah subxaana wa tacaala mar weliba aan ku kalsoonaanno allah subxaana wa tacaala inuu yahay ninka isaga wax waliba milkiiddiisa ay ku jiraan inuu yahay in aan ku kalsoonaanno allah subxaana wa tacaala inaynu tala saaranno mar weliba oo aad tiraahdaa mar kasta ufawidu amri ila allah waxaan tala saaran oo amarkayga waxaan muxuu ahaa aan u tala saaran allah subxaana wa tacaala tawakkaltu cala allah wamaa tawfiiqiya ila billah calayh tawakkaltu calayh falyatawakkal almu'minuun وعليه فليتوكل المتوكلون quraanka ba saas noogu sheegaya oo meel kasta ay ku jiraan marka is oran haddii quraadka allah subxaana wa tacaala aad ka barid uu kaa soo daaho is oran muxuu ahaa alla baridu wuu kaala raagay jawaabteedee aquusan oo ku celceli baryadaada oo allah subxaana wa tacaala waxa uu kugu yidhi walaa tayasu min rawxi illaah إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الخاسرون هكا قوسا نحريست الله هو قصار مويانه هو كلا الدومد الله كما قوسا نحريست الله والله كعل علم مرولبا وايو استقى يا الله خالقين وضع أبوري كل جينا وحولي بنا أمر كيس أي كفليين و إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون أمر كيس وحول حيا كاف كينوك marka walaalayaal intaas ayaan isfaraynaa maanta wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatu